Beesha caalamka oo war ka soo saartay doorashooyinka Somaliland. Saaxiibada caalamka ee taageera Somaliland ayaa soo dhaweeyay iclaaminta maalinta la qaban doono doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Qoraal shalay ka soo baxay safaaradda Ingiriiska oo ay ku saxiixnaayeen diblomaasiyiinta dalalka Denmark, Finland, France, Germany, Ireland iyo Italy. Sidoo kale waxaa ku jira dalalkaas Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa lagu sheegay in doorashooyinku fursad weyn u yihiin in Somaliland dib u xaqiijiso geedi socodka dimuqraadiyadda. Waxaan bogaadinaynaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo saddexda xisbi siyaasadeed sida ay ugu guuleysteen dhamaystirka hanaanka diiwaangelinta codbixiyayaasha hufan. Waxaan soo dhaweynaynaa ballanqaadkii 3 Sebteembar 2020 ay kala saxiixdeen saddexda xisbi siyaasadeed si wadajir ah u soo magacaabeen 18 haween oo murashaxiin ah iyo 3 murashax oo ka socota beelaha laga tirada badan yahay doorashooyinka baarlamaanka. Beesha caalamku waxay siisay Komishanka Doorashooyinka taageero dhaqaale oo ku saabsan wajiga diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waxaan rajeynaynaa inaan bixino taageero dheeraad ah oo maaliyadeed iyo mid macnawi ah heerka ka hadhay ee howlaha doorashooyinka Somaliland. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegtay in xubno Al-shabaab ka tirsan lagu dilay Shabeellada Dhexe. Ciidamada xoogga dalka oo howlgallo ka sameeyay deegaano hoostaga degmooyinka Jowhar iyo Raagacelle ee gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ku sugnaayeen Al-shabaab. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxaa ka mid ahaa taliyaha qaybta 27aad ee militariga Soomaaliya, Generaal Axmed Maxamed Tareedisho. Inta uu howlgalka socday, waxaa dagaalka u dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-shabaab kaas oo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Saraakiisha oo ka warbixiyay howlgalka ayaa waxa ay sheegeen inta howlgalkan uu socday in dagaallo ay la galeen Al-shabaab kuna dileen tiro ka mid ah dagaalamayaashaasi. Taliyaha qaybta 27aad xoogga dalka ayaa tilmaamay in tirada maxaabiis ah ay ku soo qabteen howlgalka lana wareegeen ciidamada militariga deegaano badan oo hoostaga degmada Raagacelle ee gobolka Shabeellada Dhexe. Goobihii lagu dagaalamay ayaa degan, waxaana wararku ay sheegayaan in halkaasi ay la wareegeen ciidamada dowladda kadib markii Al-shabaab ay iskaga baxeen halkaas. Ugu dambeyntiina, murashaxiinta ayaa waxay ku baaqeen in la qabto shir degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Golaha Midowga Murashaxiinta oo ku baaqay in la qabto shir degdeg ah ay isugu yimaadaan dhammaan saamileyda siyaasadda dalka kaas oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee cakiran. War-saxaafadeed ay soo saareen Midowga Musharaxiinta ayaa walaac waxa ay ku muujiyeen xaaladda dalka. Goluhu wuxuu ka walaacsan yahay in muddaxileedka hay'adaha dastuuriga uu idlaaday, isla markaasina uusan jirin heshiis siyaasadeed oo looga gudbayo xalka kala guurka siyaasadeed, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay murashaxiinta. Shirkan ayaa waxaa ku baaqay Golaha Murashaxiinta waxa uu ku soo aadayaa xilli Madaxweyne Farmaajo uu kulan ka dhacayo Garowe isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka, maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya.